السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، لا إله إلا الله أثني بها عمري، لا إله إلا الله يغفر بها ذنبي، لا إله إلا الله أدخل بها قبري، لا إله إلا الله ألقى بها ربي. الله هو ربنا لا نريد سواه، هو الذي خلقنا من نطفة وعلقة ومضغة، فخلقه المضغة عظاما فكسوه العظام لحما، فتبارك الله أحسن الخالقين. أما بعد، إخواني وأخواتي، السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام كدب ولا ليال. marka ugu horeysa ilaahay subxaanahu wa tacaala dembigeena ha dhaafo, umuurta allah inoo sakhiro. waxaan jecelnahay wanaag ilaahay subxaanahu wa tacaala ana wada siiyo. dembigeena allah ha dhaafo. mar labaad, qabriga allah inoo waasiciyo, allah inoo nuuriyo, xisaabta allah inoo khafiifiyo. jannaan jecelnahay, camalkeeda ma hayno, raxmad ilaahay subxaanahu wa tacaala nagu geeyo walaalayaal. intaa kadib, ikhwaani, walaalaha ka mid ah oo maaragtay videoga daawada ayaa wuxuu i weydiiyey su-aashaasi waxaa ka mid ah shaqalada iyo maaragtay xarafaha qur-aanka qaabka loogu dhawaaqo inaan wax ka sheego. horta marka ugu horeysa, awalan ikhwaani wa akhwaati, meel kasta caalamka ka joogtaan, first of all, marka ugu horeysa qofku waa inuu ku fikiraa positive wax la yidhaahdo. positiveka qofka bini aadamka ah moraalkiisa ayay dhistaa, oo qofka waxbarashadiisa ayuu maaragta hor u kicinayaa. laakiin qofka markuu negativekiisa uu badan yahay oo u yidhaahdo qofka waxaa ma qaban karo, mise ahayn wixii asaga uu sheegayo oo wuxuu leeyahay maaragtay waa igu adag tahay, mise ahayn maaragtay uu leeyahay waxaa ma samayn karo, qofka waxaa marka uu rabo inuu barto ma baran karo weligiisaba. maxaa yeelay waxa dabayaalaa wuxuu yahay negative. maskaxduna markaad fiiriso badanaa waxay qabataa waa negativeka weeyaan, positiveka ma qabato. hadda su-aal haddaan kaa weydiiyo amase caddeyn aan ku tuso, caddeynta waxay tahay qof baa gurigaaga imaanaya. markuu gurigaaga yimaado qofku wuxuu ku leeyahay marti buu ku yahay, kasoo qaad gurigaagu yimid, fadhiguu fadhiistay, waxaad ku tiri shaah ma kuu keenaa? markaasu wuxuu ku yidhi maya, shaah uma baahni. biyo ma ku siiya? maya haddaan soo cawo biyo uma baahni. den shaaha soo sameey, biyahana soo sameey, miiska soo saar. waxaad tidhahdaa shaaha iyo biyaha ha cabin oo faraha ka qaad. intaa markaad tidhaahdo, isla markiiba maskaxdiisa waxaa soo galaysa maxaa lagugu diidayaa? waa negativeka. marka wuxuu damcayaa qofka inuu shaaha mise biyaha u cabo, ila waa negative. waxaad ku tiri waxa ha taaban mise ha cabin baad ku tiri. negativekiiba markaa qofka u qabanaya. hadduu cunugoo kale, ilmaha markay wax baranayaan ay waxbarasho ku jiraan, haddaad ku tiraahdo cunugan waa damiin, maanta o dhanba markuu wax kasoo bixi waaya mise wax fahmi waaya, ninkan waa damiin markaad tiraahdo, cunugaa weligiis wax ma baranayo, damiinkaabuu ahaanaya. maxaa yeele maskaxdiisa waxay qabanaysaa inuu damiin yahay, uusan wax qaban karin. tii buu ku dhegayaa markaa, khalaas wax kastoo aad barto ma galaya maskaxdiisii, damiinnimadii baa ku dhegaysa. markaa adigu naftaadi waa sidoo kale. haddaa naftaada aad u sheegto inaa waxaas aadan qaban karin, weligaaga ma qabanaysid. sidaa daraaddeeda ayaa waxaan ku leeyahay marka ugu hore, think positive, never and never and never think negative. that's one thing aan horta advice kugu siinaya. negativityga horta marka hore banaanka iska geeyo, halkaa iska dhig. waxaad soo qaadataa positiveka, soo qaado oo positiveka isticmaal. waxa aad baranayso hadday yihiin wax adduunka maanta ugu dhibka badan hadday yihiin, xataa positivekaas soo qaado waxa inaad baran karto. laakiin haddaa adigu negativeka mar walba uu kugu dhegan yahay, maskaxdaada geli inaad waxaas aadan baranayn. marka hore taa baa idinkugu waanaya, nafteyda iyo naftiina u sheegaya. ثالثا
kordhiga iyo hoos dhiga iyo godinka qur-aanku intaas buu kala baxaa. kordhig iyo maaragtay hoos dhig iyo godin iyo reebin iyo laba shaqal, laba kordhig wuu jiraa, laba godinna wuu jiraa. xarafahan waxay leeyihiin makhaarij alxuruuf. waan samayn doonaa hadduu ilahay raali ka noqdo casharada kala soo socda, musalsalka kala soo socda ayaan kusoo qaadan doonaa. laakiin makhaarij alxuruufka intaan gaarin, shaqalada wax markaad ku dhawaaqayso af soomaaliga, hadda markaan ku hadlaya aniga haddaan yidhaahdo wax baan doonayaa, anigu markaan rabo inaan wax doonayo, haddaan idhahdo wax baan kaa doonayaa adiga. laakiin haddaan shaqaladii aan khaldo, wax baan diinaya haddaan kugu idhaahdo wax baan diinayaa, wax baan kaa diinayaa, kaan doonayaa baan rabaa laakiin kaa diinayaa waa wixii baan hoos dhigay, macnihii baa isbedelaya. marka qur-aankuna waa sidoo kale, haddaad shaqalka ah wax ka bedesho, micnihii markaa shayga marka hadalkaa waa isbedelaya oo kalaamku ilaahay subxaana wa tacaala ahaa. taana waa in la iska ilaaliyaa. sidee xarafaha lagu baran karaa? xarafaha waxaa lagu baran karaa, ha isku badin waxaad baranaysid. tusaale ahaan suuratulfaatixa waa inaan barto soo maaha. suuratulfaatixa marka aayadda ugu horeysa waa alxamdu lilaahi rabbilcaalamiin soo maaha. alxamdu lilaahi rabbilcaalamiin keligeeda waa hal aayad. alifka wuu kordhigan yahay, laamka wuu reeban yahay, xada way kordhigan tahay, miimkana wuu reeban yahay, delkana wuu godan yahay. waa alxamdu. alifkii wuu kordhigan yahay, laamka wuu reeban yahay, xada way kordhigan tahay, miimka wuu reeban yahay, delkana wuu godan yahay. so marka alxamdu aa haysataa. lilaahi waa 3 xaraf, 2 laam iyo ha soo maahan. li laamku wuu hoos dhigan yahay, laahi la-da way kordhigan tahay, hi ha-da way hoos dhigan tahay. so meesha marka waxaa kaaga cad lilaahi. so my point maxay noqonaysaa marka waxay tahay, please ilaali sharaftaada. afan hosbitaalka ila soo hadlay. oh that's beautiful. okay so marka waxaan ku leeyahay marka isku day suuradda faatixada inaad ku tababarato shaqalada. haddaad suuradda faatixada aad taqaano, shaqalada meesha ka baro marka ugu horeysa. markaad barato then suuradaha kale sidoo kale indhaha la raac, oo kitaabka markaad kala furto, khaasatan kitaabka weyn soo qaada, midka yaryarkaa soo qaada, midka waaweynkaa soo qaada, xarfaha waaweynka ku qoran, mise ahayn muraayada yaroo maaragta la yidhaahdo oo weynaysada ah soo qaado, oo maaragta xarf walba ku aadi shaqalada saa u ogaato. marka waxaad ogaanaysaa markaa shaqalada si u kala baxaan. tusaale ahaan haddeertaan markaan soo qaato bismi illaahi araxmaani araxiim. bismi illaahi waa israacday, ba hoos dhigan iyo siin reeban iyo miin hoos dhigan. bismi bismi. laakiin basma ma dhihi karin, basmi ma dhihi karin. mogta haddaan ba'di kordhigo oo siinka reebo oo miinka hoos dhigo muxuu noqda markaa? basmi. laakiin ba'da markay hoos dhigan tahay oo siinka reeban yahay muxuu noqonayaa? bismi. dan shaqalada markaa sidaa u barato tartiib adigoon markaa isugaaleynin. midda kale maskaxdaada ka ilaali inay waxa adag yihiin. taada ogow, maskaxda waxaad ka ilaalisaa inay adag yihiin. haddaadan ka ilaalinin dee maba baranaysid, adaa isku taxluujinaya wixii. marka taas samee insha allah. suuratulfaatixa ku tababaro. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. isku day markaa
inaad ku celceliso xaraf walbana aad ogaato makhaarijteeda. taa waan ka hadli doonaa insha allah, lakin xaraf walba kordhigeeda iyo hoos dhigeeda iyo reebitaankeeda iyo godinkeeda taaba lagu ogaanaya insha allah waan isku dayi doonaa inaan maaragta aan bilowno kitaabka la yiraahdo axkaam tajwiid oo noo sharxi doona makharaj alxuruufka iyo idqaamka, qunaha, madaha, shidka, intaanu noo sheegay insha allah. taana waan ka hadli doonaa. marka waxaa idin leeyahay walaalayaal, meel kasta caalamka ka joogtaan soo duceeya. walaalkiina cabaas sheekh cabdilatiif sheekh maxamed weeyaan. anigana waa idiin soo duceynaya, aniga idiin soo duceey insha allah. mustacidiin insha allah. salaamu llahi calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu.